السلام عليكم. بشي سفر لح بقول كونتوني لحجري وكو بيغان كون لبا بقولي كونتوني سيديدي بغداد وحي بلان لهي دولان آن النوعي ساكال هوري لو أرق هيرر عيدان تطار أي أوودي ويدي دولادي عباسيين تيني هور استاكتو أيا مقالة سيدي دادكي سوغالي وحينا جيستين قومات أي دفتا إن تاريخ دلغو أركو وحي أهيد مصيبة وين كوهبستي مسلمين تا إلها قار وحي شاقان إن هل مليون أوقف بغداد لغو دلي بل كوا أياله إن دادك أي دلين تطارك أوغاري مليون يسداد بقولو كن أوقف إسلا هبين كاس أي مصيبة داس دعضي مال كن يتضواب بقولو كيلومتر بغداد أجرت قياستي حيبها بدا مرمرة دالك تركي كمانتا آبا لغو مقعاب إرطرل بن سليمان إيه هويا لغو مقعاب حليمة خاتون أيا وحاودا شي ويل أي أبحيان عثمان أيا أغو مقعدري ذو النورين خليف كي صدحاده عثمان بن عفان رضي الله عنه أما عثمان سيد أنا كصومالي هان أنا قلت أواغنا ويل كاس عثمانة وحدث دونا دولة أود بدن جاري دونتنا بريغ يوروب إلى حيبها أفريقيا بري جيري دونتنا مدلح بقولو سنة خلافة إسلام تي أقول داريد أبي تاريخ دا مسلمين تا أيو ديس دونا ويل كاس دا شي هبينكي بغداد لقبصدي دولة دي عثمانيين تا سيدا الرسمي قاول لماتي كون سقال بقولي لبين لباتنكي waxaan filayaa in dad badan ay ogaadeen meesha uu ka imaaday magaca dowladii Cuthmaaniyiinta xanuunka iyo quusta ayay rajada ka soo dhex baxday dhicidii Baghdad iyo musiibadaas aadka u weyn ayuu dhinaca kale Ilaahay qadaray dhalashada ninkii musiibadaas ummadda ilowsiin lahaa dhurriyadiisana ay xaqiijin doonaan bishaaradii nabiga furashada Qustantiniya caasimadii Orthodox-ka bari waxaa la wada ogyahay in Turkida maanta asal ahaan ay ka soo jeedaan Aasiyada dhexe sida Turkmanistan ila deegaanka Igoorka maanta xaaladda aadka wada kala kulmaayo nidaamka shuuciga Shiinaha qabiilad ay ka soo jeedaan Uthman iyo aabihi Ertugrul ilaha qaar waxay leeyihiin waa dadkii ka soo cararay ka soo barakacay Turkmanistan bilowgii hore ee duulaankii Tataarka ila kale ayaa leh waqtigaas ka hor ayay imaadeen dhulka Turkiga maanta laakiin waxaa la wada ogyahay in qabiilkooda ay lagu magacaabo uu yahay qabiil Turkumaan ah shucuubta Turkida ee degta Aasiyada dhexe ay ka imaadeenna Turkmanistan mudanayaal maanta waxaan ka hadlaynaa nin lagu magacaabo aabaha salaadiinta aabaha boqorada iyo faatixiintii waaweynaa السلطان الغازي فخر الدين قرة عثمان كي كوبات إنا أرطغرل إنا سليمان شاه تركمانيا سليمان شاه oo ah awooga Uthman kan aan ka hadlayno wuxuu ahaa hogaamiye sultaan qabiil ka soo haajiri Aasiyada dhexe oo salka dhigtay dhulka Turkiga maanta oo ay xukumaysay waqtigaas saldanad muslim ahayd oo lagu magacaabo jiray dawladda Salaajiqada muslimiinta waxayna ahaayeen qabiil reer guura ah sidaan arki doono mar ay u guuri jireen dhinaca tusaale ahaan waqooyiga Suuriya iyo xitaa gobolka Naynawa dalka Ciraaq meelahaas ay degi jireen maalin maalmaha kamid ah asagoo goynaya webiga Furaat Suuriya waxa aan ka hadlayno waa Sulaymaan Shaah awooga Uthman asagoo goynaya webiga Furaat bariga magaalada Xalab dalka Suuriya ayuu ka dhacay fardihii uu saarnaa kadibna webiga Furaat ayuu ku qarraqmay qabrigiisa waa Sulaymaan Shaah ilaa maanta waa la yaqaanaa wuxuuna ku yeelaa gudaha xuduudka dalka Suuriya xuduudka Turkiga agtiisa waxaana ilaa maanta ilaaliyo ciidan Turki ah waa cad dhul ah ku dhex taal Suuriya gudaheed laakiin ku xisaabsan ama dawladda Turkiga ay mulkisay dawladda Turkiga ay leedahay waxaana ilaaliyo weligeedna joogay ciidan Turki ah hadaba kadib geerida Sulaymaan Shaah waxa xukunka beesha la wareegay wiilkiisa Ertugrul laakiin wuxuu u jeestay dhinaca waqooyiga Anadolu Turkiga gudaha Turkiga ayuu aaday wuxuuna ka guuray waqooyiga Suuriya Ertugrul wuxuu ahaa geesi adag wuxuu si wada jir uga qayb qaatay dagaaladii dawladda Salaajiqada muslimiinta ay mar la gali jireen Maqulka marna ay la gali jireen Byzantiyiintii Room xilligii uu hogaaminayay Alauddin Kayqubaad iyo waliba sidoo kale dagaaladii ka dhanka duulaankii Tataarka Ertugrul wuxuu muujiyay geesinimo ay dhiftay in la arko waxaana aad ula cajabay hogaamiyihii dawladda Salaajiqada muslimiinta Alauddin Kayqubaad kadibna wuxuu abaalmarin uga dhigay waayadii hore sida la isu abaalmarin jiray way ka duwantahay sida hadda la isu abaalmariyo wuxuu abaalmarin uga dhigay in uu dhul ku wareejiyo dhul ila Ankara taxan ayuu yiri adiga iyo qabiilkaada iyo ragaada dhulkan adinkan idin siiyay wuxuuna u bixiyay asaga iyo raggiisa ilaaliyayaasha xuduudka Ertugrul wuxuu haystaa rag oo maamulo iyo dhul uu ka taliyo taariikhdu markay ahayd 1281 680 hijri ayuu geeriyooday Ertugrul bin Sulaymaan
halkan waxaa ka bilaabanaya taariikhda cuthmaan bin arturul aasaasaha dhabta ah ee dowladdii cuthmaaniyiinta 600 sano jirtay. haddaba markuu geeriyooday aabbihii arturul ayuu la wareegay xukunka beesha iyo dhulkaas aabbihii la siiyey. waa udubdhig ilaa heer macquul ah si dowlad loo aasaaso, dad aad xukunto iyo dhul in aad haysato. wuxuu qaaday duulaanno ka dhan ah ruum ama bisantiyiintii, maalinba qalco iyo deegaan cusub ayuu ka qabsanayay. wuxuu hareerayay magaalada buursa ee caanka ka ah maanta bariga turkiga, laakiin kuma uuna guulaysanin in uu furto magaalada buursa. wuxuu si tartiib ah ugu faafay dhulka turkiga ilaa uu gaaray magaalo lagu magacaabo Sogod. haddaanan magac si qaldan ugu dhawaaqin, 1300 taariikhdu markay ahayd ayuu magaalo lagu magacaabay Yeni Shahar ka dhigtay caasimad. waqtigaas dowladdii salaajiqadii muslimiinta waxay wajahaysay xaalad kala furfurasho iyo ducfi ah, waxaana bilowday in culimadii, umaradii, dagaalyahanna xitaa khibrad leh ee dowladda salaajiqada ka mid ahaa ay ku soo biiraan imaaradan cusub ee cuthmaan bin arturul. aad ayuuna u soo dhoweeyey dabcan, maadaama wax badan uu ka faa'iidayo. markan wuxuu haystaa dhul uu maamulo, lagu dara ciidan khibrad leh, lagu daray sidoo kale rag micnaha dowladnimo waxay tahay yaqaano. waxaa la sheegaa in dowladda salaajiqada muslimiinta ee burburtay xoogaa dhinaca maamulka ilaa heer ay shabahaan yurubiyaanka, nidaamka dowladnimo iyo waxyaabo badan xitaa ciidamada qaabkay u labistaan, taasoo keentay in uu cuthmaan ka sii faa'iido. waa shay runtii aad iyo aad faa'iido u leh markii loo fiiriyo dhisidda dowlad cusub. mudanayaal, labadan taariikh bal meel ku qora. 699 hijri 1299 miilaadi waxaa lagu tilmaamaa dhalashada dhabta ee dowladdii cuthmaaniyiinta, kadib markii imaaraddii cuthmaan noqotay mid ka madax bannaan dowladdii salaajiqadii muslimiinta addowla saljuuqiya. taariikhda kale qaar mu'arikhiinta ka mid ayaa leh waxay si rasmi ah u dhalatay dowladdii reer cuthmaan 708 hijri 1308 miilaadi, ayagoo leh waa dhimashadii sultaankii ugu dambeeyey dowladdii salaajiqadii muslimiinta ghayaathudiin mascuudkii saddexaad. ayagoo leh weliba wixii intaas ka horreeyey noocay ahaataba si uunbay imaaradda cuthmaan u raacsanayd dowladdii salaajiqada. shucuubta turkida waa qoom weli ba'sin shadiida dhinaca dagaalka, dad itaal ahaan aanan aad u dheerayn, xoog badan. markaad hadda xitaa maanta turkida gacmahooda aad fiiriso aad ayay u gacmo waawen yihiin. sababtu waa inay asal ahaan ahaayeen qabaa'il reer guuraa fardafuul ah, ba's iyo dagaal lagu yaqaanay. haddaba geesinimadaas oo lagu sii daray islaamnimo ee jihaad jacayl waxay keentay in muddo yar gudaheed uu dhiso cuthmaan bin arturul dowlad awood badan. waxaa jira arrimo muhiim ah oo ah meesha ay dhacdo juqraafiyan imaaradda cuthmaan bin arturul oo ah meel caalamka bariga iyo galbeedka isku xirto. waddadii lagu magacaabi jiray waddada xariirka ee ilaa shiinaha ka imaan jirtay, yurubna tegi jirtay. wuxuu daris la ahaa dowladdii bisantiyiinta ruum. waa dhul ayna weli muslimiinta furanin. waxaad ogaataa in weli bakhdaad ay maquulka joogaan. 50 sano ayaa la sheegaa in maquulku ay bakhdaad ku sugnaayeen. haddaba imaaradan cuthmaan bin arturul waxay qiblo loo haajir u noqotay qof walboo muslima ka soo cararay xukunkii maquulka. sidoo kale waxaa ku soo yaacay qabaa'ilka turkiga ka imaaday aasiyada dhexe. waxay noqotay qiblo qof walboo muslima karaamo raadinaya uu imaado, xitaa ayadoo weli bilow ah. cuthmaan wuxuu ahaa nin caqli badan, yaqaanan waxyaabaha xasaasiga, dhaqamada shucuubta iyo wax walboo khilaaf keeni kara wuuna ka fogaan jiray. sida tusaale ahaan dagaaladii uu qaadi jiray waxay ahayd mid ka dhani keliya bisantiyiintii ruum aanan muslimiinta ahayn. xitaa isagoo awoodo in imaarado u dhowaa uu weeraro kana adkaan karo, weli kuma uuna duulin cid muslima meel ay ka taliso. xitaa isagoo awoodo in uu qabsado wuu iska ilaalinayay. waana arrinkaanay in muslimiintu ay aad u qadariyaan, madhab walbo haystaan in cuthmaan bin arturul aad loo qadariyo. weliba waxaa lagu tilmaamaa sidoo kale inuu ahaa nin aad u taqwo badan. mu'arikh taariikhyahan turki ayaa leh wuxuu ahaa cuthmaan nin iimaan qoto dheer leh. hawsha dagaaladan iyo furashooyinkan uu qaaday keliya uu arkay faafinta islaamka, wax kale aanan aaminsanayn, xukun iyo micnaha adduun aanan ku fikiraynin. waana arrin aan arki karno in uun aad iskugu mashquulin jirin in dad muslimiin oo dagaal la galo ama uu dhulkooda qabsado. haddaan dib ugu yara laabanno bilowgii mawduucan, waxaan sheegnay in cuthmaan uu dhashay habeenkii bakhdaad ay gacantii maquulka ku dhacday tataarkii. haddaba muddo dheer 10 sano ayaa ka soo wareegatay. qadarta ilaahayna waxay keentay in cuthmaan iyo tataarka ay dagaalamaan. dagaallo aad u kul ayuu la galay, kuwo badanna uu ku jabiyey. cuthmaan dowladahaas uu dagaalka kula jiray haddii ay noqdaan maquul iyo haddii ay noqdaan bisantiyiin dabcan awood ahaan way ka awood badnaayeen. waxaana adkayd in ciidan si kafool ay fooda isu geliyaan. wax badan ay ka ciidan badnaayeen, weli dowladdu way cusub tahay. haddaba wuxuu raaci jiray taagtika ah daalin
inuu dagaal daalin la galo inuu kala jaro inuu si degdega u weeraro inuu yacni ay aad u daalaan aad ayuu u daalin jiray dowladdii bisantiyiinta waxaa jira dagaal lagu magacaabo bafiyos waana guushii ugu horreysay ee weyn ee dowladdii cuthmaaniyiinta ay ku jabayso room bisantiyiintii room ee ilaa wakhtigaas haystay qustantiniya weli lama furanin dabcan maxamed alfaatix ma imaanin bal waxaa lagu tilmaamaa dagaalkan dagaalka dhabta ee caalamka baray dowlad la yidhahda dowladdii cuthmaaniyiinta waxaana ka dhashay in dowladdu fito kiristankii joogayna dhulkan turkiga maanta ay u hayaamaan daanta kale ee yurub giriiga wixii ka bilowda ay u hayaamaan waxaana ka dhashay in dhulkii ay banneeyeen ay muslimiintu degaan taasoo ka dhigan aqlabiyadu inay muslimiintu noqdeen dalka turkiga kadib sanadyo badan oo dhulka islaamka sii faafiyey waxaa imaaday xaqiiqada geerida oo ah shay aan la iska tiri karin geeridiisa waa la isku khilaafay taariikhda dhabtee uu geeriyooday ilaha qaar ayaa leh 22kii ramadaan 729 hijri oo ku beegan 1326 ama 1320 miilaadi ayuu geeriyooday waxaa bedelay oo uu lahaa wiil asaga uu dhalo sidoo kale ahaa maasha allah nin kaloo geesi ah taqwo badan lagu magacaabi jiray oorkhaan ninkaas ayaana sulaaladii reer cuthmaan halkaas ka sii waday oorkhaan ayaa qaaday calankii aabihii wuxuuna ahaa nin aanan ka yaraysanin aabihii cuthmaan oorkhaan bin cuthmaan wuxuu ahaa bilowga salaadiintii cuthmaaniyiinta 600 sano dhulkaas aad ku weyn xukumayay uguna dambeeyey cabdilmajiid athaani 1922 موضوعاً أنا قهضلني الفاتح عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه انتانو كو اجيهي وانيقو عمر انشار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته